waxaa la yidhi dagaalada dunida ka dhacay oo dhan waa ka duwanaa. sababtu wuxuu uga duwanaa 3 arrimood oo culus baa ku dhex jiray dagaalkan. waa marka hore waxa weeye dagaalkan wuxuu dhashay dagaal weyn kadib iyo ku hayay dabada dagaalkii Gaza ka dhacay. dagaalkaas oo la isyiri waxa ay Iran ahayd dawladda ugu xooga badan ee gargaaraysay dadka loo yaqaanay muqaawamada amba maartay residence-ka, maadaama ay sida Iran ahayd oo la daciifiyay dadkii iyada gargaarayay oo ay ugu tala gashay in ay darafyada kala dagaalantay cadowgeega la yidhi way daciifeen. waxaa la yidhi iyada ha u tagno. marka dagaalkan wuxuu ahaa dagaal Iran jiritaankeega lagu tirtirayo. walidaalika waxaan arki doonaa hadallo ka soo baxaya Netanyahu ra'iisul wasaaraha Israa'iil amba madaxweynaha dalka Mareykanka Trump oo ku tusaya in dagaalkuunan ahayn dagaal istiraatiijiya uu yahay dagaal argoosi ah. marka waxaa lagu macneeyay dagaalkan dagaal argoosi ma ahayn dagaal istiraatiijiya. taasoo kaga duwanaa dagaaladii kale. gartay arrinta labaad ee dagaalada uu kaga duwan yahay waxa weeyaan maxamuudow waa arrin muhiim ah oo ah in aynan ahayn dagaal qaraar ay qaateen dadkii qaraarka qaadan jiray markuu Mareykanku qaadanayo dagaalada istiraatiijiga ah. waxaa lagu qaatay meel sare oo ah guriga cad waa lagu qaatay faqad. laakiin Pentagonga iyo maxaan ku dhahdaa mukhaabaraadka iyo aqoon-yahanada waaweyn oo turusi jiray marka dagaalka hadduu dhaco maxaan ku guulaysanaa maxaan waayeynaa lagama wargelin. haddana waxaa ku jira dagaalka arrin saddexaad oo muhiim ah, dagaal diini ah oo waxaa ku laaqnaa diin baa ku laaqnayd. waxa weeyaan inaa la tirtiro cadowga Israa'iil taasoo ilaahay loogu dhawaanayo tabaaraka wa tacaala say ku aaminsan yihiin. marka taasi 3 baa jirtay. marka sidaas daraadeed waxa weeyaan dagaalkani wuxuu ahaa dagaal la yidhi waa exceptional, waa istithnaa'i. dagaaladii Mareykanka ku qaadi jiray ma aha, laakiin 2 meelood buu u egyahay dagaaladii Mareykanka ku qaadi jiray. dagaalada Mareykanka ku qaadayay waxaa dhahdaa waa dagaalo hadafkoodu yahay dhaqaale. dhaqaale kaga maqnayn oo Trump wuxuu yidhi waxaan gacanta ku dhigaynaa batroolka Iran iyo gaaska Iran. haddii batroolka iyo gaaska Iran si fiican loo soo saaro waa number 1 bariga dhexe. marka si fiican soo saarto marka wuxuu isagu yidhi Steve Venezuela waan qabanay tanna waan qabanaa annaka maamulna batroolka Iran. hadalkaasi waadix uu yidhi saxbaha maqaalad baa iyadoo dagaalka arki doonaa bal. arrinta labaad ee dagaaladii uu Mareykanku qaadi jiray waxay uga egtahay wax weeyaan xarbiga loo yaqaano influence-ka nufuudka. inaad dunida meelo waxaan hore u ornay xuduudda dowladda Mareykanka marka la diraaseeyo waa meesha danihiisu ay ku dhamaadaan. marka danihii Mareykanka ee bariga dhexe iyo khaliijka iyo adduunkaba wuxuu ka dhex arkay Iran. laba arrimood waa laga xaqiijinayay. arrin culus baa laga xaqiijinayo ah in Chinaha la cuno qabateeyo. walidaalika Chinaha iyo Ruushku waxa ay ka hor yimaadeen arrintii ay carabtu jaamacadda carabta maahan khaliijka carabtu ay geeyeen majliska amniga ee ahayd in Iran maaragtay laga saaro qaraar gacanta ay taagan veto isticmaaleen. way yar tahay inta uu Shiinuhu isticmaalo diigmada qayaxan ee la veto. maanta uu isticmaalay Ruushkan uu isticmaalay kamay aamusin oo ka aamusi jireen veto ka hor keeneen. marka Chinaha masla waa loo socday bariga dhaxana waa loo socday in gacanta lagu dhigadeeto oo Israa'iil laga dhigo awoodda koobaad ee maartay bariga dhexe. inahaas oo dhan oo isku jira ayuu dagaalka u qaaday madaxweyne Trump. gartay okay su'aashii marka maxay ahayd Patrick? go'aanadii waxay ahayd wax dheeri ah ma ka baranay oo go'aanada soo qaateen ma ku jirtay go'aanadiisa ma ku jirtay qaadashiisa ma weydiisad tan labaad. okay tikol maxaa tiri tan koowaad waxaan ku weydiiyey wax dheeri ah ma ka sii baranay Donald Trump dagaalkan Iran kadib. okay horta waxaa dadka maaldood waxaan aqrinayay nin qoraaya oo isagu aad ugu horjeedo Carlos Maldada ninkani qoraalka maarta qoraal ma hayne wariyaha Tucker Carlson
ayaan akhrinayay igis yar uu qoray way isku jawaabeen wuxuu yidhi in uu Maraykan madax ka noqdo qof aan la garanayn meel uu u socdo Soomaa wax laga yaabo meel uu u socdo qof aan la garanayn soo wax laga yaabo maaha isaguna wuxuu ku yidhi waan ogaa inaad caqligaaga iyo maskaxdaadu inay xadidan tahay limited waan ogaa buuri marka kuu jawaabi maayo buuri laakiin Tucker Carlson gadaal buu iska bedelay dadkii aadka u taageersanaa buu ku jiray doorashadiisa yani waan ku aqaanay buu kale waa cabsaday Maraykan waa cabsaday wadankii wuu baqay waxa markaa aan iga soo baxay oo madaxweyne Trump 4 sifo oo hore aanu sheegin يعني إمك أنت نبيك صباح قرتي رجل المفاجآت وين وعنين سربرت كجا وحيرها سربرايز كجا إنه عصب كانوا كدبنا مركا وقاعدة ما حي سمعنا ساعة واحد مدينه كل راح يسمع كتا سوا مدة هرت وصفة أولية صفة الله بعد يابك بدل الله حويان إنه إجست أو قرية إنه كم عمل السوق يجعلها مركا هدو أرك سوقي أو مارتي صوت شيف سنة وكأنا هالشيء ورنا الدنيا قرب بقريريا كديمنا وصورنا دينا مركا سنة كي هرم doorashadii hore oo ku soo baxay oo Clinton ku badiyay islaanta waxay tiri waxaan aad uga xumahay berito la subaxa inuu guriga cad iman doono ninku xukumi doono Mareykanka Twitter saasay tiraahday markii uu madaxweynaha noqday iminka adduunka oo dhan madaxda Twitter way qoraan say ka barteen laakiin waxa lama aqoon berigii hore wasaaradda arrimaha dibadda ee China waxay soo qortay markii waxay tiri sideen ula dhaqanaa dawladda weyn ee Mareykanka ma Twitter ka dhaqanaa بس وزارة أريمها دبادة من التويدا دزجنة كسر بحية قاعنا ذا يندقي سنة البعض الناس وكلا شاكت مرة تعتبر ومدة لبعضه يعني مدة صدق هذا كسر بحذي حويان من حوينها مرتي نكني صدق سفيد تدخل سكون حضرين قال واحد هو معتوه وعقلي يريح قال واحد هو مجنون وأنا جاي قال صدق حنا واحد هذين وحقوق فكرة سي عقلي سريع لكن رالي قلنسا نيكا سوق جوغا هاي كان ينتهي حاسي البدء هو ده عجيب وقت وحين هذا علمتهم نيكا سياسي وحوليه دو عقلية تركيبية وحوليه عقل كومبلكس ويسدولي ألا ومركو قرار سوا صاريو وحوكا فكريا كل شيء مركا بكسو نحساريا دنيار عم بطينيار بكسو جيدايا تاسو تكو شاقيا لكن waxay soo martay qaraar kali boqolaal darajadood waxa la eegaya dhaqaale siyaasad bulsho isagu waxa ma eegayo marka waxay dhadan wuxuu la tafaaculaya ninka dariiqa jooga mid baydi waa intelligence waa daki jiddan maskax badan yahay laakiin marka loo eego siyaasadda maaha maskax marka loo eego shooga hada waayiga bars waa maskax weyn marka taasina way ka soo baxday arrin kale ka soo baxday أنت كسب بعد واحد واحد دعية ما هنا واحد دعي دون شغلكم عليه إمي كوح سمينيو أدبوك يا لكن واحد أوسمي ما حيسمين دون تشغلكم عليه كما فكر ما آخرنا يو ولذلك وحال هذا نك سياسي واسد نك فقيه نك سياسي ما هذا هذا دومين دون مستقبل كيسة هي مستقبل كدولة وحكومة بكا لكن فقيه أنا واحد هذا فتوى ما شاغو إميكا واو فتوى إلى هذا لكن بريته له دبرجب كنيسة ولذلك أبو إمام شاطبي رحمه الله من لا ينظر إلى المآلات فليس بفقيه قفك إيه كان أرمها ماشي يكون ضمانة يعني مستقبل قفك أنا مآلات كأن لسعن فقيه ما بهم حان أركر أنا كنا قفك أنا قرارك وصو صاريو ماشي آديس أن أركين سياسي سياسي ما نغني مركا صفاتك ونكني إيمك عن ليهي قواسا كميلة دونالد ترامب شيخي انتي وسعودي دقال كان إيران أوكي دونالد ويدال عنيسي ولا إيجي أساقنا حقوق هذا قوانو قادني قوان نديسي كو آدنا دقالك سيدي مثلا الله أخري وددكو آخريين marka la eego dalkan Mareykanka gaar ahaan iyo dunidaba guud ahaan
horta maraykanku waa dowlad weyn markalena waa dowlad weyn waxaan uga jeednaa waa dowlad culays dhaqaale leh dhaqaale maxay tahay yani dunida waxa dul yaala 30% halkan u yaala dhaqaalaha dunida oo dhan waa 198 dowladood 30 maraykan taala ama maraykan baa iskale gartay waa dowladda koobaad ee ibtikaaraadka wax soo saarka curinta waa number 1 lagolma tartamo waa dowladda koobaad ee muasasaadka cilmiga institutionada sayniska waa number 1 waa dowladda koobaad ee hagga ciidanka oo haddii ruush iyo shiine iyo yurub iyo dunida dhan isku biiraan ma heli karaan badh awoodda maraykanka kullu hadda isku tagaan ma heli karaan waa dowladda koobaad ee dhinaca maxaan ku dhahdaa institutionada dastuuriga ah ee waaweyn ee ilaaliya dowladda ay ka jirto weyaan marka waddan saa u culus weyaan waddankii sidaa u culusaa baa isku bedelay waddan uu u talinayo qof waata keentay markaa cabsi weyn oo ku dhacday aqoonyahankii maraykanka waata keentay weyaan cabsi weyn oo ku dhacday xataa dadkii xisbiga kula jiray ee jumhuuriga waata keentay cabsi weyn oo ku dhacday dadkii demokraatka ilaa dadka gudaha jooga ay isweydiiyeen ma gabagabadii dowladda maraykanka waxyaelada la qoro waxaa ka mid a hal aflasat amriika maraykanku haddeeto ma u dhammaatay iflaasku waa marka uu shirkadu kacdo maalinta may dhacday qaar kale waxay qoraan hal bada'at amriika tafqidu quwataha amerika ma waxay bilowday inay awooddeedii weydo mid kale wuxuu qoray hal huwa akbar mismaar ma mismaarkii ugu weynaa lagu dhiftayba xadaaradda maraykanka trump cabsidaaba bilaamatay jaraa'idku ay qoraan iminka ragga mufakiriinta ay qoraan waa markii ugu horeysay ee dadka gudaha ku jiray ay dareemaan in aynan la joogin madaxweynaha caqligii maraykanku madaxweyne kasti oo maraykana wuxuu soo urursadaa caqliga maraykanka wade haba urursada kuwa isaga ogole laakiin caqligu oo urursadaa waa markii ugu horeysay uunan caqligii unan urursanayn bal waa markii ugu horeysay caqligii la joogay ay ka kala daadanayaan kuwii soo dhisay yaa ka daadanayaan marka waxaas oo dhan wuxuu keenay qaraaraadkiisa in loo akriyo inay ahaayeen qaraaraad aan ku dhisnayn horta marka hore qaraaraad madruusa desishino madruusa may ahayn gudaha marka la eegayo midda labaad maynan ahayn qaraaraad marka la soo saaro hirgelinteedu ay u baahan tahay ragga loo dhiibo in iyakuna si cilmiya oo sii hirgeliyaan qaraarka isagoo soo saarkiisuna cilmi u baahan yahay hirgelintiisuna ay u baahan tahay in adeegsado dad marka saddexaad qaraaraadkan iyo desishinadan iyo go'aanada marka ay soo baxaan ee la arka qaladkooga horu iskaga soo laamaya waqti ma siinayo marka gudihii maxaa ka dhacay markaa see looga arkay gudaha tirma waxaa ka dhacay waxa dhahdo zilzaal gariir baa ka dhacay waxaa ka dhacay khawf cabsi baa ka dhacay waxaa ka dhacay cadamu siqa confiancekii baa la waayey kalsoonidii baa la waayey waxaa ka dhacay aqalkii caddaa dadku inaynan u arkayn guri muqadas ah oo culus waxaa ka dhacay in kongresska maraykanku ay dhahdaan qaanuunka la dhahdo 26 dastuur ku yaala ha laga shaqaysiiyo oo ah in la casili karo Trump 80 bay gaadheen dadka saas oo badhigay oo kongresska ku jira waxaa ka dhacay inaa maaragtay inaa la soo saaro arrin kaloo taa ka culus oo ah in la yidhahda ma eegi karnaa ehliyadda uu leeyahay inuu waddanka maamuli karo ma u qalmaa marka guduhu saasay u arkeen dibadda marka la yidhaahdo 3 shay oo waaweyn baa dhacay kow kala durug isaga iyo xulufadiisii gaar ahaan dowladaha Yurubta oo Faransiiskii iyo Talyaanigii iyo Ingiriiskii oo saaxiib weyn lahaa weligeed ma dhicin Ingiriiskii iyo Maraykanku saa u kala durka iyo maaragtay Jarmalkii kala durug weyn baa dhacay arrin labaad baa dhacday kala aamin bax baa dhacday isaga iyo khaliijkii
وأرنتاسين دبيت وحكي متى خليجكو أنا ما أمين سني لكن خليجكو حسكو هستي إنه حلفيين أليانس يشيس إنه مارتي لكن واحد دن تيسو كجاري يسقو لكن يقول حركي إنه حلفيين على الأقل إسرائيل كو يكتن لكن واحد صوع عطاته إنه أنا حمين دهين يكين واحد كود عادي كل سؤال درو ويعبصدين مستقبل كود ويعبصدين ويسوق قاعدين قطع سنة وسيد بدل لغة أخير أرنت صدحات وأرنت أقوم مهم سويا ده كان وكان ما كان لقى صوب بلا بقزة إلا إمكان وهو كان إن أي بربرتو هو قطعة إن أي بربرتو وهي لا يقعني بريء يهري قانون كدولي حركة عالمية أو قصة ليسن نظام كعالمية قانون كدولي هو حرشة الدولة وتعالى waxay dhismayeen ilaa 300 sano soo dhismay laakiin markii dambe dagaalkii labada adduunka xoog loo dhisay qaanuunkaasi wuxuu ku dhisan yahay nidaam system caalami oo adduunka xukuma systemkana waxa ka dambaysa falsafada ugu weyn waxay ahayd yaraynta dagaalada ilaa laba dagaal oo la soo arkay ka shaqaynta nabadgelyada isku soo dhaweynta shucuubta waxaasa laga sheekeynay ilaalinta xuquuqda bini'aadanka intiiba waxa baabisay قصدنا كلا قصوا بلعبة إلا إمك ولذلك ضد رمضان وحي آمسين هنجبات دي وهنجبي ويلوان بابين إيران وحن كل علنا وقت يدقحلا ما لقى سوقاتي كرا دقال جرائم حرب ما لقى سوقاتي كرا كريبا لك لو هنا أحد ما لقى سوقاتي كرا هل كاس على سلطة مركا وحن وجد جيدا وحويان أريمها سبا مركاسي دوني تساسي واركيسان تأثيرك أو سمية وحويان وحا أي وايدي دولة مريكا وحويان والدولة أدونك كو قبستي اللي بقى أود الشيخو إلا وانا معها وحا كو قبستي أود عسكري أو الله يقانو أود حديدك قرآن كنا أبحي معرتي وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس حب أدونك الوقت قبستي قصة المجرين لكن دوني ده وحا لقى إيبيني واحد هذا إن أود فضط وده بنا سوفت كلام مهم سنتنا وواحد لو سمي هوليوودك اللو سمي يو اس اتك اللو سمي معرتي جرائدك اللو سمي شخصي امريكا كو انو نقضو شخصي موديل ولذلك دليرada oo ku jiro dulyadayna sheekhuna waxay wada xidhan jeans waxa weeyaan waxa la cunaa adduunka maartay hamburger coca la cabaa adduunyada waxaa mise film baa Hollywood ka soo baxaa la daawadaa oo maartay adduunka waxaa laga maamulaa maskaxda aadamiga lagu daydaa halkana laga sameeyaa haday tahay aqoonta iyo haday tahay Hollywood ka waxay u jecel yihiin labiska oo ka shaasabaxad waxaad moodaa laga soo dorkeetay oo la leeyahay isaguna uu ka qayb galay wuxuu ku leeyahay maxaan dunida iska iibinayna maxaan adduun uga baahanahay dunidu iyada noo baahan laakiin waxa ka maqan falsafada Mareykanka lagu sameeyo ahayd inuu Mareykanku dunida xukumo ilaa sameyn inuu Mareykanka dadku u baahdaan marka baahi mutabaadila la sameyn jiray tiibu ka soo guuray marka taas waxa soo maartay waxa la dhacay wayaan